kulan wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Somali News tabinteennana waxaa qayb ka qasaare ka dhashay qarax lala eegtay saraakiil ciidan oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Roble oo mar kale ku celiyeen doorashada waqti kooban lagu soo gabagabeeyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo sheegay in Muqdisho ay ka jirto arrin ka halis badan qaraxyada ka dhaca magaalada haddaba waa maxay? Iyo wararkii ugu dambeeyay weerarada dalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine baaqa wadamada caalamka iyo cunaqabataynta Ruushka ayaan warkeena ku tabi doonaa ee u diyaar garooba daawadayaal. mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa 24 Febraayo 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda gudagalno. haddii ayna ku bilowno magaalada Muqdisho waxaa xoga dheeraad ay ka soo baxayaan qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qaybo kamid ah. qaraxa ayaa waxa si gaar ah uga dhacay wadada warshadaha magaalada Muqdisho waxaana la sheegay in lala eegtay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo wadadaasi mareysay. kadib qaraxa ciidamada ayaa furay rasaas tiro badan waxayna xireen dhaqdhaqaaqa meesha ay wax ka dhaceen sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. ilaa hadda ma jirto cisi dhab oo cadeyn karta qasaaraha ka dhashay qaraxa lala eegtay ciidamada dawladda ee ku socdaalaya wadadaasi. sidoo kale ma jirto wax faahfaahin oo saraakiisha laamaha ammaanka ee Soomaaliya ay ka bixiyeen qaraxaasi waxaana socda haatan baaritaano dheeraad ah oo lagu xaqiijinayo cidda ka dambeysay. qaraxan ayaa qayb ka noqonaya falal lid ku ah amniga oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha caasimadda kuwa oo geysta qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. weeraradan ayaa ku socday xilli dalka uu ku jiro xaalad kala guur ah waxaana wali socdo doorashada xubnaha golaha shacabka oo haatan gabagaba ku dhow kuwa deegaan doorashadooda ay tahay Muqdisho. saraakiisha ciidamada ammaanka ayaana horey lagu baaqanay arrimaha siyaasadda lugta kala baxaan isagoo ra'iisul wasaare Roble shalay saraakiisha ciidamada iyo kuwa AMISOM kala hadlay sugitaanka amniga caasimadda iyo ka hortagga falalka amni darro oo waayihii dambaba caasimadda ku soo badanayay si aysan saameyn ugu yeelan doorashooyinka dalka iyo amniga caasimadda. markaana ra'iisul wasaare Roble ayaa mar kale ku celiyay doorashada waqti kooban lagu soo gabagabeeyo maadaama waqtiga loo asteeyay hal maalin oo kaliya naga xigto. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay waxa casho sharaf ugu sameeyay madaxtooyada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland ee doorashadoodu dhamaatay. xubnahan oo dhawaan lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa isugu jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya aqalka hoose iyo kan sare. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa caawa casho sharaf ku maamuusay xildhibaanada dhawaan lagu doortay ee labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ku metelaya gobolada waqooyi ee Somaliland. guddiga doorashooyinka maamulka Somaliland ayaa 2 maalin ka hor ku doortay saddexdii xildhibaan ee ugu dambeysay doorashada kuraasta labada aqal ee gobolada waqooyi waxayna noqdeen guddiga doorashooyinka ugu horeeyay ee ka dhabeeyay soo gabagabeynta waqtiga loogu talagalay ee doorashada xubnaha aqalka hoose ee golaha shacabka. 11 xubnood oo golaha aqalka sare iyo 46 golaha shacabka ah markii la isku daro wadarta ah 57 mudane ayaa baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya gobolada waqooyi ee Somaliland kuwaas oo hadda dhamaantood la doortay. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo goobtaas khudbad ka jeediyay ayaana ugu baaqay mar labaad madaxda maamul goboleedyada iyo dhinacyada kale ee lugta ku leh doorashooyinka in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo maadaama laga baqayo inay la kulmaan cunaqabateyn iyo sidoo kale cadaadis kaga imaanaya beesha caalamka. waqtigii ugu dambeeyay ee shirka golaha wadatashiga qaranka lagu soo gabagabeeyo doorashadana la isku raacay 25 bishan oo maalinta berri oo Jimcaha ku eeg. inkastoo waqtigaasi aan lagu soo gabagabeyn karin doorashada haddana waxaa mar kale muuqata dib u dhacyo xooggan oo wajahayso oo ay ugu badan yahay xildhibaanada ka imaanaya deegaan doorashada labaad ee maamulada. Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa xilligan uu dadaal xooggan ku bixinaya sidii waqtigii doorashada hore shirka golaha wadatashiga qaranka 9 Janaayo lagu shaaciyay in 25 bishan lagu soo gabagabeeyo waqti ka agdhow lagu soo afmeeri lahaa si loo gudagalo doorashada madaxtinimo iyo tan gudoomiyaasha baarlamaanka ee dalka. markaana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Cumar Finish ayaa khudbad uu ka jeedinaya kulan ka dhacay degmada Dharkiinle waxa uu kaga hadlay arrimaha ammaanka ee magaalada Muqdisho. Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in maalin walba loo gudbiyo xogta qaraxyo iyo sidoo kale dilal ka dhacaya gudaha caasimadda balse waxa uu tilmaamay in haatan ay ka halis badan yihiin dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka isticmaalo maandooriyaha sidoo hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu intaa ku daray in dhibaatooyinka maandooriyaha uu ku hayo bulshada ay 5 jeer ka badan yihiin falalka ay geystaan kuwa isqarxiye ama kuwa isdila. inta uu qof daroogaysan uu dilay ama intuu dhaawacay ayaa 5 jeer waxa ay ka badan yihiin kooxaha kale isqarxiye dhibka ay u geystaan bulshada ku dhaqan Muqdisho ayuu yiri duqa Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa fariin u diray dadka Soomaaliyeed waxaana ugu baaqay in meel looga soo wada jeestaan la dagaalanka maandooriyaha iyo kuwa cadawga ku ah
nolosha bulshada Soomaaliyeed. Hadalkan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku soo aadayay iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyay ay kordhay dhibaatooyinka amni darro iyo kuwa maandooriyaha oo sababayo caasimadda ku soo batay waxaana haatan ka socda doorashada dalka. Si kastaba ha ahaatee maamulka gobolka Banaadir ayaa bilihii ugu dambeeyay wada wacyigelin ballaaran oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa loolana dagaali lahaa maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsado. Markaana Ukraine si toos ah ayuu u bilowdeen weerarada oo saaka amray madaxweynaha dalka Ruushka in lagu qaado Ukraine kuwaas oo ilaa iyo haatan ka holcaya gudaha dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegay in dalkiisa la soo weeraray isla markaana ay iska caawinayaan weerarada kaga imaanaya dalka Ruushka. Warbaahinta dalka Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay kuwa Ruushka ka dileen ugu yaraan 50 askari sidoo kalena 6 diyaaradeed oo kuwa duqeymaha ay soo rideen waa sidoo hadalka u dhigeen. Dowladda Ruushka ayaana gudaha Ukraine ka fulisa magaalooyinka caasimadda ay qayb ka tahay duqeymaha ay la bartilmaameedsanayaan bariga Ukraine iyo magaalada caasimaddu ah dalkaasi waxaana ka dhashay khasaare xooggan. Gawaarida dagaalka ee Ruushka ayaana ilaa iyo hadda ku sii qulqulaya gudaha dalkaasi oo dagaalo ay haatan ka socdaan. Khasaare kala duwan ayaana ka dhashay dagaalada ka dhacaya Ukraine ee weerarka ku soo qaaday Ruushka. Kumanaan ka mid ah dadka ku nool caasimadda Ukraine ayaa ka qaxaya iyo magaalooyinka kale ee ka agdhow kadib markii ciidamada Ruushka ay duqeymo la beegsadeen. Qaar ka mid ah dadka caasimadda Ukraine ayaa gabaad ka dhiganaya xarumaha tareenada laga raacay ee dhulka hoostiisa ah kadib amar ka yimid saraakiisha ammaanka ee dalkaasi oo la faray shacabka inay ka digtoonaadaan weerarada iyo duqeymada ay fulinayaan ciidamada Ruushka ee amarka lagu siiyo weerarka dalka Ukraine. Dowladda Ukraine ayaa ka codsatay dhankeeda Turkiga inay maraakiibta dagaalka ay ka xirto biyaha madow oo haatan ay marayaan si ay weerar dhinacyo kale ah ugu qaadaan dalka Ukraine. Mareykanka ayaa durbadiiba ku dhawaaqay inay cunaqabatayn saareen halka midowga Yurub ay shir degdeg ah ka yeelanayaan xaaladaha cakiran ee dalkaasi. Putin ayaa ciidamadiisa ay weerareen Ukraine waxa uu reer galbeedka kaga digay fariin degdeg ah u diray inay joojiyaan faragelinta haatan ay wadaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu kulan yeelan doonaan hogaamiyaasha G7 oo maanta Khamiis ah iyagoona u hanjabay in cunaqabatayn degdeg ah la dul saari doono Ruushka. Dhankiisa ra'iisul wasaaraha dalka UK ayaa isugu yeeray golihiisa wasiirada kulan degdeg ah si ay uga arrinsadaan jawaabta UK ay ka bixin lahayd arrintan ka soo cusboonaatay Ukraine iyo Ruushka. Madaxweynaha hore ee dalka Ukraine ayaa haatan oo ah xildhibaan ayaa yiri maanta waa maalin musiibo ah balse Ukraine way guuleysan doontaa. Xiisadda Ukraine oo waayihii dambe iyo Ruushka ka taagneed ayaa aad u soo xoogaysanaysa isagoona Putin madaxweynaha dalka Ruushka uu saaka amray ciidamadiisa xilli aroor hore ah inay dagaal toos ah ay ku qaadaan dalkaasi. Khasaare xooggan ayaa la soo warinayaa inay dhinacyada soo kala gaara dagaalamayo balse madaxweynaha dalka Ruushka ayaa haatan la kulmaya cadaadisyo xooggan oo kaga imaanaya dhinacyo kala duwan. Inta ayaan ku soo gabagabeynaa qiyaaray timinta wararka Somali News aad kala socoteen fadlan muuqaalkan haddii ku soo gaara sii share gareeyo saaxiibada kale si gaashay boggeena Somali News ku soo biir haday tahay markii kugu horeysay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo.